hadii aan u gudubno wax lagu magacaabo hyperthyroidism oo ah qanjirka in uu shaqadiisa badiyo si qoto dheer hadii aan uga hadalno marka uu qofka qanjirkiisu thyroid-ka ee dhuunta ku yaala oo shaqada badiyo waxa ugu horeeya ee bukaanku isku arki karo waa kuleel fara badan oo qofku dareemo isla markaana qabo oo mar walba raadiyo cuntada oo aad ugu furanta iyo miisaankiisa oo aad u yaraada iyo sidoo kale calooshiisa oo aad u jilcada sidoo kale waxa kamid ah wadna garaac xadka baxa oo qofku dareemo mar walba iyo restless qofku inuu noqdo ama in qof aan fadhin ama sal fadhiya aan lahayn oo noqdo oo kale ama qof isku buuqsan oo kale muruqihiisu inay daciif aad u noqdaan inuu noqdo qof qalalan oo maqaarkiisu uu ka kan yahay oo kale calaamadaha lagu arko qofka qaba hyperthyroidism waaye mararka qaar waxa lagu arki karaa qofka indhihiisu inay soo baxaan oo indha aad u waaweyn oo kale oo qofku isku arko ama loo soo dirso ama sidoo kale qofka la kulmaahay oo u sheego in xaaladiisu aysan xaalad fadhida ahayn inta kadib calaamadahaas markii uu bukaanku isku arko oo dhakhtarka la kulmo wada sheekaysiga dhakhtarka iyo asaga dhexmara ayaa lagu go'aamiyaa inta badan in hyperthyroidism bukaanku uu qabo inta kadib waxa loo baahdaa baaris guud sida dhiig in laga baaro hormoonadii in la baaro sidoo kale in scan waxyaabo lamida loo diro marka kadib jawaabta soo baxda ee dhakhtarku ku qanco hadii ay tahay hyperthyroidism bukaankaasi inuu qabo waxa uu qaadan doona bukaankaasi dawo lagu yareynayo hormoonada qanjirka uu soo deynayo si xaaladiisii hore uu dib ugu soo noqdo bukaanka isla markaana kuleelkii faraha badnaa cunto cunistii aad ka ahayd calooshii jilcaneed iyo daciifnimadii ka muuqatay bukaankaasi oo kaga reysto waa mahadsantiin السلام عليكم صاحبيال كسو دواده mar kale ee barnaamijyadeena caafimaadka oo kaga soo gudbino bogeena bukaan deeq clinic magaciigana waa Dr. Shariif Xidig hadii ilaahay ma muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa qanjirka dhuunta qaybteeda hore ku yaala ee lagu magacaabo thyroid-ka shaqada uu qabto ciladaha la soo dirsa iyo sida lagu garto xanuunada noocyadooda kala duwan ee ku dhaca qanjirkaasi ama loo kala saaro iyo ugu dambeyn talada ama dawada ku haboon bukaanka xanuunada qanjirka thyroid-ka ay la soo dirseen ugu horeyn qanjirka thyroid-ka waxa uu ku yaala qaybta hore ee dhuunta trakeeda ama doobada qaybteeda sare ee soo muuqata ee wajiga ku aadan qanjirka waxa uu egyahay wax lagu magacaabo butterfly ama balanbaalista ayuu u egyahay waxa uu leeyahay laba luubis oo u eg ama shaabaha baalka iyo qaybta dhexe oo lagu magacaabo ismath inta kadib qanjirka miisaankiisa marka uu normalka yahay oo wax cudura oo san qabin waxa u dhaxeeya 10 ilaa 15 gram inta u dhaxaysa qanjirku wuxuu soo daayaa hormoono lagu magacaabo calcitonin T3 iyo T4 kuwaas oo shaqada ugu badan ee jirka qabta ma jirto xubin ama unug jirka kamida oo qanjirka thyroid-ka oo san shaqo ka qaban shaqada ugu balaaran ee uu qabto waa xadeynta wadna garaaca qofka caafimaad qabka ka qayb qaadashada caafimaad qabka ee maqaarka fertility-ga oo ah xagga dhalmada iyo dheefshiidka cudurada ku dhaca qanjirka thyroid-ka waxa kamid ah gootar oo ah qanjirku inuu aad u bararo marka qaar qofka oo wax xanuun ama wax calaamada aan lahayn in qanjirku uu iska bararo qofkuna uu taabto barar saaran dhuuntiisa waxa ugu badan ee sababana waa cusbada qofka oo yaraata sidoo kale waxa kamid ah Graves disease wax lagu magacaabo kaas oo ah immunity-ga jirka inuu isla jirka dib u weeraro oo qanjirka weerar ku qaado isla markaana qanjirka uu la kulmo caabuq oo keeno wax lagu magacaabo thyroid stimulating immune globulin kaas oo ah isla difaac jirka in uu weeraro qanjirka si qanjirkaasi uu soo saaro hormoon fara badan dhiigan loogu daayo marka kadibna qofkaasi la soo dirsan wax lagu magacaabo hyperthyroidism oo ah in qanjirku shaqadii aad u badiyay sidoo kale waxa kamid ah thyroid cancer oo ah cancer inuu ku dhaco qanjirka thyroid-ka thyroid nodules oo ah buulal tira badan in qanjirku uu yeesho sidoo kale waxa kamid ah hyperthyroidism oo ah shaqada qanjirka inay aad u badato sidoo kale waxa kamid ah hypothyroidism oo ah shaqada qanjirka inay aad u yaraato iyo sidoo kale Hashimoto's thyroiditis oo ah isla difaaca jirka oo jirka dib u weerara iyo thyroiditis oo ah caabuq la soo dirsa qanjirka
cudurradaas tirada badan ee soo weerara qanjirka waxa lagu gartaa bukaanku marka uu la kulmo dhakhtarkiisa wada sheekaysiga dhexmara ayaa inta badan lagu ogaadaa inta kadib dhakhtarka ayaa baaris guud u diray bukaanka sida indhig laga qaado hormoonada uu qanjirku soo daayo in la baaro iyo sidoo kale scan iyo waxyaabo lamida in bukaanka la saaro